اللي باقي وصل قري ساعة يسوي لنا ساعة إلى السلبة أنكر عود وامية على وامية إلى السلبة أنكر عود وامية عودني وهسعت ومنتظر ما الرسم إلى السلبة إلى السلبة أنكر عود وامية I'm
عجبت arrin maalin weeyto oo dadku isla dhex wareeganayeen oo dadku waa la celinaa la dhahay dadku xogaa qalad u fahmeen aniga waa u tagay madaxweynaha waana ogaay dad badan oo u geeyay way la kulmeen arrinta la isku haayay ma aha dadku sharci darro dadka oo sharciga aan haysan la celinayo laakiin 25 qofood oo dawladda lagu wareejinayo madaxweynahana kaliis macalin karo waxaan sharciyada u baahan tahay baarlamaanka la mariyo u baahan tahay madaxweynahana dadku sida ay u fahmeen ma aysan wax badan oo mucaaradada ah ka faa'iideysanayay oo mar walba isku dayay waxyaalaha laga hadlayo in la marin habaabiyo waxa idin sheegay arrinkaas inaysan jirin waxa kale oo jirto arrinta baasaboorka Soomaaliga oo wadankan aan ogoleyn in madaxweynaha muhiimadiisa koowaad uu kala hadlay haddana process ay geliyeen ay rabaan in arrinkaas ay dhamaystiraan baasaboorka Soomaaliga laga aqoonsado wadankan dunida barigi la uma jacaylkana lala bilaabo DJ Manka in the building Okay.
xafladda muddo noo socotay Hiiraan State waayo maxaan ku dhahaa 3 asbuuc ku dhawaadkeeda soo wadnay marka waxaan ku mahad celinayaa intii mataqaana ka soo qayb qaadatay xafladda inta caawad mar sharafka si fiican inoo dhicaysa xafladdan magaceedu waa Hiiraan State midnimada Hiiraan ayaan mar shaqeynaa inaan isku geynaa rabnaa marka waana ku mahadsantihiin TV-gana television caawad noo soo qayb qaadatiin sida nadaafadda leh mataqaana oo fiican nidaamka leh oo si khatarta noo soo qayb qaadateen marka aad iyo mahad celinayaa xafladdan jooggeedu waa noo degan yahay xildhibaan qaran waayo oo Soomaaliya dhow mataqaana xildhibaan u yahay waa xildhibaan dowladda Soomaaliya oo mataqaana wax marka maadaama ku soo jeedo gobolka Hiiraan asigana waa Soomaaliya iyo warbixin ka bixi wixii interview mataqaana Soomaaliya ka baxsan laakiin xildhibaan qaran oo dowladda Soomaaliya waayo marka asigana hadda wuxuu u yimid Soomaalida oo joogto qurba joogta soo u arko oo fiiriyo oo joogto u qiimeeyo u yimid xafladan in badan baan ka soo shaqeynay muddo adiga ilaa 3 ilaa 4 toddobaad ah inkastoo aan maaragtay aan jadid community jirin laakiin haddana xaflad waxaan dhihi karnaa xaflad aan ka soo taxadirnay waqti badan aan gelinay annagoo ku sameynay qaab walba oo xafladda maaragtay loo maamuli karo waxaan sameynay xafladda laba qaybood oo ka mid ah qaybta hore oo Hiiraan State kulankeeda iyo qaybta dambe oo ah dhammaan community-ga Jarmalka degan ee Soomaalida ah waxaan diyaarinay qaybta maaragtay waxa loo yaqaan maaragtay amniga kala tood haday tahay si shaqaadka kale inaan si fiican aan u xakameynay aan u sameeyno keenay dad professional ah oo shaqadaas maaragtay maamuli kara ugu dambeyntii kulli maamulkan Hiiraan State hadda ma shaqeeyo rajada aad ka qabtiin inuu shaqeeyo oo yani uu noqdo mid loo dhan yahay oo midnimadii ka shaqeynaya balka war waa su'aal fiican waxaan rajaynaynaa maamulkan inaan taayaradii maaragtay uu ku dhaqaaqi lahaa inaan hadda u rakibno marka arintaasna way socotaa waxaan rajaynayaa in la dareemi doono insha Allah waxaa jira Soomaalidu waxay tiraahdaa fulixanta samamooga xaflado badan oo ka dhacay dalkan Jarmalka carqaladay ku dhamaadeen hadduu fanaan dhiganayo iyo haddii maamul goboleed dhiganayo saas daraadeed aadan uga taxadarnay xagga amniga sidaan kuu sheegay waxaan ka shaqeynaynay team sida hore u sheegtaba team ayaan ku shaqeynaynay teamkaasaan hormuud u ahaa waxyaalo badan baan mas'uuliyadda iska saarnay sida amniga iyo protocolka oo anigu aan qaabilsanaa waxaan dhihi karaa si nabad ah ay noogu bilaabatay si nabad ah noogu dhamaatay anagoo juhdi badan gelinay waqti badan gelinay caqabadaha ugu weyn oo meeshan ka dhacan waxa weeye dalkan Jarmalka waxa jooga dhalinyaro u badan waxa jooga dhalinyaradu waa dareemaysaa markii xafladda dhigto xafladdiina lacag laga dhigo oo dadkii lacag ku galaan maamulkiina uu maaragtay uu maareyn waayo caqabado badan baa ka yimaaday iyo fawdo saas daraadeed annaga tii aan qabanay wax lacag laguma galin annagoo keena waliba fanaanin dhalinyaradu aad u jecel yihiin oo annagana aqteeda qaali ku ah sida Raxma Xasan iyo Cabdi Baadil oo kale fanaanka weyn dadkuna waa nagu taageereen halka qodob oo kaliya aan dhihi karo way fashiliyaan xafladaha dalkan Jarmalka ka dhaca waxa waaye waa dadka guddiga ah ee markaas maamulka wada ayaa u sababa sababtoo ah waxa dhici karta in ayaga laftigooda aysan meel soo wax wada dhigan oo aysan ku soo talagalin xafladaas qaabka qorshe fiican annagu marka waxaan ka taxadarnay oo culayska aan saarnay laba arrimood oo aan kuu sheegay waa amniga oo aan guddi u xil saarnay iyo protocolka oo aan guddi u xil saarnay وانا dareemi kartaa waana joogtaa umaleynaa xafladii sida u dhacday quruxda badnayd warbixino badan laga heystaa Jarmalka ogtahay oo waxa la leeyahay midada loo ordaa xaflada lagu qaban karo fanaaniinta waxaan rabaa halka inaan u sheego fanaaniinta iyo dadka xafladaha qabsanaya Jarmalka waa meel safe ah dadku way jecel yihiin fanka laakiin waxay u baahan yihiin maamul iyo maaragtay guddi isku xil saara hadduu fanaan yahay iyo hadduu maaragtay xaflad lagu dhigayo mar walba waxa lama huraan in maaragtay la helo guddi isku xil saara oo arintaas ka dhabeeya si maaragtay dhalinyaraduna maaragtay ay u raxaysto fanaaniintu waxaan leeyahay de wixii dhacwo aragteen 9 bishee soo dhaqsada oo maaragtay imaada meeshan imaadaha waayahay wuxuu ahaa kaasi mid ka mid ah raggii qabaqaabiyey xafladii quruxda badneed ee ka dhacday dhawaantan dalka Jarmalka wuxuu idin leeyahay Jarmalka dhibaato kama jirto waa la imaan karaa xafladna waa lagu qabsan karaa aad iyo aad u maasantaa mudan ما شاء الله ما نروح حق كيف عليه حفلة هيران ستيت ونطلق مقالة دامشتاد وسنة دورة دي أفريقيا الطبنات ومركب كورة شاكس وقيب ولا حفلة حالي اليرد سوها باوشين هذا يوم تسيين أنا بقول الله يمرع صفية راور فاو جرمن
waayahay waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii aan ku eegeynay xafladda Hiiraan State ee dhawaan ka dhacday dalka Jarmalka waxaa imika dhinacayga midig taagan Cabdullaahi Cabdi Maxamed Toosane loo yaqaano oo ah gudoomiyaha jaaliyadda reer Hiiraan ee dalka Talyaaniga in muddo ayuu halkaas ku noolaa oo ay arag ayuu u yahay waxa ka dhacaya Yurub iyo waliba dalkii Soomaaliya haddaba waxaan marka hore weydiinaya maadaama uu ka mid ahaa guddigii qabanqaabinaya xafladda Hiiraan State bal xafladdaas inuu sawir guud noogu bixiyo qaabkii u dhacday runtii xafladda reer Hiiraan State oo heeday sanad guuradii 14aad dhalinyarada qabanqaabinaysay runtii si qurux badan ay u qabanqaabiyeen waana wax wali aan ka dhicin taariikhda jaaliyadaha Soomaaliyeed yani xalfadaha qabsado Yurub يعني qaabkii u dhici jireen kuwaas ee qaabka tan u dhacday waxyaabo badan ku kala bedelnaayeen sida hore walaalkii oo uu sheegay Maxamed Baadil runtii xalfadu waxay aheeday amnigeeda la sugay securitygeeda la adkeeyay freena laga dhigo wax lacag aan lagu galaynin runtiina si qurux badan yani ma aragtahay looga shaqeeyay sida yani si amni ugu bilaabaleed amnina ugu dhamaalaheed sidii qorsho ahayna way noo noqotay guushaasna Ilaahayaan maarad ku mahadinaynaa iyo dadaalka dhalinyarada iyo isku duubnida dhamaan dhalinyarada reer Hiiraan oo runtii aan u kala harin wiil iyo gabar oo maaragtay muujiyay dareen yani reer Hiiraannimo muujiyay mid Soomaalinimo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in guushaas gaarnay runtii xafladan Ilaahay ku mahadsan waxay nagu dhacday si qurux badan oo qaabada markaan bilaabaynay rajadii aan qabnay inoo suurta gashay waan faraxsanahay xildhibaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka soo qayb galay xafladda muxuu idin kula dardaarmay عادي الحلوان محمد عبد الله الدلال راحيو nin dhalinyaro ah dalkii ka soo qabtay wax badan asagii Maxamed Cabdi Qaadir waxay ku mareen safar dadkooda maaragtay rabitaankooda weydiinayaan una dardaarmayaan midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaan ahay qadinkii ay ku qatimayeen waddanka Jarmalka caawa halka la dardaaran fiican oo Soomaalnimo ay noo dardaarmeen si gaar ah gobolka Hiiraan ay noo dardaarmeen inaan meesha midnimo Hiiraan State oo dhan yahay halka ay ka dhacdo runtii waan isla qaaday inta badan waxaa la sheegay in dhibaatooyin ka dhacaan Jarmalka marka xafladaha dhacayaan arintaas sidee ugu qayb qaadateen ama aad ugu hortagteen dib inay dhacaan runtii annagoo ahayn guddi rag iyo gabdho walaal ah oo maaragtay si way aragnimada loo soo xulay ayagoo bilow ah iyo haddana sidii u qaabeeyeen way aad u qurxoon ku mahadsan yihiin aniga ka shakhsi ahaan waxaan ahay caawo madaxa ammaanka loo xil saaray hoolkan hadday noqoto si gaar ah xildhibaanka iyo si guud martida iyo reer Hiiraan State waana ku guuleystay ana maaragtay way aragnimadood iyo maaragtay la marka la soo xulay waan ku faraxsanahay Ilaahay ku mahadsan rajo noocee ay ka qabtaan inuu maamulka shaqeeyo maamulka runtii markii hore way iska jireen kalama laakiin hadda mar haddii dalkii hooyo la isku raacay haddana dadka reer Hiiraan ay ku asteystan yihiin horeynta maaragtay deegaamada Soomaaliya waliba diyaar u yihiin qorbihin annaga aan intii jaaliyada xilwaana samar aan isla qaadanay waxaan rajaynaynaa waxa naga dhiman waa qalinka madaxweynaha waxaan rajaynaynaa garabkiisaan taaganahay asagan reer Hiiraan State oo midaysan Soomaalida Hiiraan State